بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ku sii soconaynaa insha Allah cashirkeeni teamka shaqada in si fiican u wada shaqeeyaan la xiriiray marka waxaan ku soo qaadanaynaa teams inay wada shaqeeyaan oo effective ah waliba inay wada shaqeeyaan kulli muhiimadda ay leedahay iyo guusha ay gaarsiiso shirkadda qof kasta waa dareemi karaa laakiin insha Allah waxaan ku sii soconaynaa macadka Spain casharadii aan ka soo tabi jirnay insha Allah waa maxay horta effective team management ama effective teamwork inay yihiin sifooyinka lagu garan karo team managementiga inay aad u fiican yihiin ama effective team managementiga inay aad u fiican yihiin ayaan ayagana insha Allah aan ka hadli doonaa waxa la dhahay effective team management team work marka la sameynayo koox yani company-ga koox kamida ama qayb department aan dhahno kamida markii ay si fiican u wada shaqeeyaan waxa la gaaraa guul la gaaraa markii ay si fiican u wada shaqeey waayaan waxa la gaaraa guul darro marka waxa la rabaa labadeenaba in labadaba aan wax ku qaadano ayaa la rabaa marka waxaa jira waxyaalo marka qayb qaata in teamkan oo si fiican u wada shaqeeyo iyo in kale waxyaalana wax waaye waxyaalo internally ah oo dadka wada shaqeynaya ay ku xiran tahay waxyaalana waa waxyaalo la xiriira wax kor ka imaaday waaye oo banaanka ah waaye tusaale ahaan teamkan inuu si fiican u wada shaqeeyo waxay ka horta marka hore waxay ka imaan kartaa ragga maamulka ah oo ayaga maamulka ah tusaale ahaan in isku aadiyaan oo teamka si u wada shaqeynaya laba qof oo tabcaan ah inaysan hal meel aysan ka shaqo gelin qof oo tabcaan ah inaysan hal meel ka shaqo gelin laba qof oo fiican ah aysan hal meel ka shaqo gelin marka waxa la rabaa in teamka la isku dhafo ayaa la rabaa in teamka la isku dhafo in teamka loo fiiriyo aqoonta ay leeyihiin la rabaa waxa kaloo la rabaa in teamka laga ilaaliyo waxyaalaha grievances-ga iyo dhexdooda iyo qof hebel loo fiican yahay qof hebel loo daran yahay iyo waxyaalahaas wararka dhexgalaya in laga ilaaliyo ayaa la rabaa sidaas daraadeed marka waxa kaloo la rabaa waxyaalo kale marka waxa jiro teamka dhexdiisa ah hadii tusaale ahaan dadka la isku keenay ay noqdaan department-kan u badan dad ayaga dhan war iyo xan iyo balaayi iyo hebel saana iyo hebel saana yani qofka nature-kiisa marka hore ay ku sameysneed ayada wax laga bedeli karo taas wax laga bedeli karo waa macquul in la yiraahdo in shaqadooda marka cuuriyaanta in la arko ka bacdi la kala bedelo ama laga wareejiyo meesha laakiin macnaha waa wax caqiide ah oo ayaga gudahooda hadhow ku soo laabanayso oo aad wax ka bedeli karin waaye team waqadad waxa jiro markii shaqada la isku yimaado war badan oo war le maanta oo wadaaya oo maanta dhan bahalkii ahaa hebela intaas la siiyo ma aragtay lacag hebela saas la yeelay ma aragtay hebela inta ka dhacay ma aragtay hebela saana ma aragtay dad noocaas oo dhahayaan ayaa jira laakiin sida saxda ah waxa waaye dadka markaas nature-kooda adiga ma bedeli kartid taas oo kale teamka gudahooda waaye marka waxaan si fiican idinku bayaaninayaa wax waaye teamka hadii oo la rabo inuu si fiican u wada shaqeeyo horta waxa asal ah inay caddahay meesha loo socdo ujeedada macnaha teamkan oo wax uu qabanayo waxa la rabaa inay caddahay waxa kale oo la rabaa waxa jira channel oo lagu wada xiriiro communication channel fiican inuu wada jiro tusaale ahaan hadii shaqo la iska rabo waxaan ku wada xiriirno WhatsApp ama email aan ku wada xiriirno hadhow marka wax waaye shaqani ku soo diray shaqadii ma qabatay niyo ma arag shaqadaas inay sadcin hal rabaa laakiin waxa la rabaa inay dhacdo la yiraahdo shaqadaas ma soo dirtay ha shaqaas ma telefoon ay u soo sheegtay ha niyo raallo hadii ma ana arkin ma waa iloobay email hadii loogu diro laakiin ma iloobay qofka warkaas waa cadaanaya marka waxaan qaadanaynaa marka labadaas qodob oo muhiimka ah waxaan la ka rabaa inay u cadaadaan iyo in communication channel oo jiro meel lagu wada xiriiro waxyaalahaas kale marka qodobada kale oo ah qaabka iyo dadka warkooda iyo waxyaalahaas way saameeyaan waliba inuu teamku ama hor u socdo ama hor u socdo ay saameeyaan marka
waa la idinka rabaa inaa halkii ahay iska ilaalisaan war waxba ma soo kordhinayo wax soo kordhinayo waa shaqo ayaa la rabaa waxaa kaloo teamka laga rabaa effectiveness efficiency haddii teamka dhexdooda ka jirto ayadana waxa waaye waa waxyaalaha ku guuleysan karo oo teamka tusaale ahaan mar walbo shaqadii la qabanayo waa laga tashtay waa lagu dhaqaaqay waa shaqo oo halkii ahay leh markaas go'aan fiican oo ka soo baxay sababtoo haddii hal qof meel isku soo xiro halkaas qof waxa waa effectiveness inuu asiiba waa yarta waa dhici kartaa laakiin waa yarta efficiency-gana waxa waaye shaqada sida loo qabanayo inay yacni si fiican noqoto oo tusaale ahaan galabta oo jimco ah aan shaqadan qabanno laa iyo haddaan dhahno berri aan qabanno efficiency waxa u fiican galabta aan qabanno shaqadan inkastoo ay ku xiran tahay waxa mar walba meesha la xiriira laakiin efficiency mar walba waxa u fiican meaniska shaqada loo marayo inuu caddaado oo horey loo kala dhamaado ayuu ku fiican yahay marka adduunka marka maxaa laga sheegay research lagu daabacay business meesha la yiraahdo Harvard Business Review lagu daabacay oo ninkan Richard Hamann oo bahalkii ahay wax badan research oo ka soo qabtay oo la xiriira bahalkii ahaa effective teamka waxyaalo yar oo ka sheegay oo go'aan ku qaatay research-kan waxaa laga sameeyay secrets of great teamwork laga sameeyay Harvard Business Review lagu daabacay waa arki kartiin waa daar raadisaan wax mushkil ma lahan marka saddex qodob oo u sameeyay oo yiri great teamwork waxay ka dhalan karaan saddex qodob oo ka sameeyay saddexaas qodob waxa waaye compelling direction wax la yiraahdo horta in ay jirto authority qasbayso ama direction u sameynayso shaqadan saana loo qabto inta laga dhaco waxaas dhaheys inay jirto iyo waxa kale oo jira strong wax la yiraahdo structure inuu jiro strong structure kan waxa soo galaya qaab dhismeedka teamka cidda oo ka amar qaadanayo qaabka u soconayo waxyaalahaas soo galaya strong structure kan marka waxa kale soo galayo procedureski iyo kanaalada lagu shaqeynayo qaabkii inay meeshaan ay cad yihiin oo wax cad oo qofka task inta loo diro taskii shaqada uu soo qabtay inuu soo qaban laga dareemayo waxa kale oo jira wax la yiraahdo supportive context yani in la taageero teamka supportive context waxa waa teamka in la taageero oo shaqooyinkooda loo fudeeyo haddii tababar u baahan la siiyo haddii bahalkii ahay lacag u baahan iyo budget la siiyo haddii u baahan yihiin dhexdooda inay shirar iyo waxa sameystaan loo fudeeyo environment-ga inuu noqdo environment oo supportive waa mahadsantihiin wixii warbixina la markaas ayaa nagala soo xiriiri kartiin. Assalaamu calaykum.